بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما سومالوين مالو البادوين كا جوجتان الله waxaanu ka wada rajeynaya caafimaad iyo cibaado suuban iyo amal khayr mid kasta muraad leh inay bahay muraadkiisa mid khayr ka dhigo kuwa xanuunsanna caafimaad taas iyo kuwa geeriyooday jannadii udgooneed hooy uga yeelo kuwa laga geeriyoodana sabir iyo iimaan ka siiyo kuwa dhashaysta bahay dhasha u barakeeyo kuwa dhal sugayana dal badan oo barakeysan hasiyo lamaran dalkeena iyo nabad iyo bulshada Soomaaliyeed midana dal joog iyo daba joog Allah weema weydiisanaya da waxaan leenahay intii hore u joogtay gacal barakoobo iyo fariista intii dib naga soo biirsan aan joogin waan noo hel iyo dhiirigelinay gacmaha idin barakoobeena subscribe to sida waxay soo gaadhay idin kale idin soo gaadhay xogaan ninkii sharmarka yaraa ama sharbaboy in Nairobi uu tagay xaflad lagu qabanay dad badan bay soo su'aaleen aragtida siyaabo kala duwan uga soo hadlay hadaba qof ba aragtidii hadii loo akhriyo wax dhici kara saataan waxaan arkaa ayaan dar marka dad badan oo Soomaaliyeed waxay ugu tuhmeeyeen sharmarkada inuu nin u dhow yahay oo walaalkiis ka weyn oo kala aan ahay wixii tala iyo tusaale oo lama huraan dee ay haboontahay nasiyo way aan ogahay in dhalinyaro ah oo aqli badan inuu yahay garaadkiisu ku socda hadaba waxaan idin su'aalay inta garashada iyo garaadka la idin su'aalaya shamarka waad arkayseen walaalkii saaxiibkii deeq darajo in lagu dulmiyay Nairobi xaaskiisi la caayay gabar Soomaaliyeed oo sharaf lahaan iyada nin kale oo Soomaaliyeed aan dulmi mudnayn dhiig laga daadiyo dhaawiciisi muuqdo isagii la yiri soo bariyo tan oo loo bahdilay عند على سوق على ركتين بلا حكاية ده حكمتها موقال كيسي هدلكيسو أي سوق يجي ما دلتها إنك أنت هسوا حالة ضد يدبعته نفعهان دري ماذا يدي قضاء إنه صفضت وقلت جاي إنك يدل مجاي جستمال ويسقي وردييني بعد سؤال يا مثلا والله وحنا عقلي بقاعدين كرني يوقف كسر جلال اسكت ضيق أصلا وحنا أركان أنا أركتها دام قدر صنع يا جلال ولا أنا وجه هالشيء ما بفكر ده إنه سنقاضنا إنه نفعل سريع وياهي هسأت حدي عم بفكر كتر سنة وإحنا الله حقي عدالة دي بعد في سين كوا دون يجوزتها مال أي كله مدان بدونيا لو مش أنا وين دمعته هتجنينا وتجي سنة إذا كرامي شرف كنت تجي دونا وقت يجي هالكاس دول وكاسي سؤال الله أنا وين دمعته هذا بدك الصوماليات وعوي أرين كابون بوننا يا قاب قبيل وله وحياها نوع عاصة شلت ولا درين كيسو سووا نينك كوين هدو قبيل قرنا أيوة أما هو هذا ندريني markuu inanka yarka dulmiga u geysanayay deeq darajo markuu sharmarka u ciilayay cawaanka kanaan aqliga lahayn markuu wiila kan yarka ah ee abtiga iyo adeerkaba uu yahay uu bahdilayay oo jirdilka ku sameeyay xageeba aqligiisu jiray aqligu shalay yeelan waayay miyuu maanta yeelanaya amaya halkii umbe ka dalosha rawana lay kuwaaniya warxma ku tara hagaba ku tara arwal jajaban biir wax ma lagu shubtaa lagu shubtay wax macna halkii umbe ka dadanayso marka aqligaasu ma aad aqli aadan iyo qof dareen leh dadka Soomaaliyeed ee qadiyada qabiilaysan iyo qaab wax loo hogaaminayaa leh shalaba qabiil waxtarina Soomaaliyeed baaba qabiila dulmiguna qabiil ma yaqaan qowl aan ma hadaba waxaan idin sheegayaa wadriyoonaysa mariyaan soo jeed ka dhigan ma dhibaan raaxmoodaya aayirona laayo ka watan kale bulshada reer Nairobi iyo bulshada Soomaaliyeed ee dunida iyo daafaheeda joogta aad baad u mahadsantihiin waxa weeye waxaan arkaa damiirkii Soomaaliyeed waxaan arkaa dadnimadii Soomaaliyeed waxaan arkaa damqashadii Soomaaliyeed iyo dhaxalkii dadkeena waxaan arkaa diinteena inaynu nahay kuwo wali u basan dulmigu ma fiicno mana aha wax qabli kula galiyay aniga dhaqaala la isku dayay xataa in lagu fangareeyo oo dareen ahaan la isku soo magaranaysa in lagu soo jeedo qof aabahay iyo hooyaday iyo guriga ka imi yaqaan waxa ilama yimaada wali baano haduu baano dhalo waa baro ekaaday haduu nin doqona dhalo waa qof u ekaaday nin biri mas haduu baano dhalo uu biyahaba alashan nin fariidnimo iyo fiicnaan iyo diin iyo dhaqan lagu yaqaan haduu nin nacas dhalo te shahwadiisi waa khasaartay marka ana waladul Abdurrahman kawda hooyadayna xalaal bay qoorata aabahayna xalaal buu qoorta gurigan ka imi baan ka turjumaya dalkaygan ka turjumaya dadkaygan ka turjumaya dhaqankaygan ka turjumaya in Soomaaliyeed banaan marka dadka xaalaanta iyo waxyaabaha maleegaya ee soo wada war xaalaan hadii cid wax tarayso iyo maal wax lagu noqdaa fircoon bay wax tarlay qabri baana laga galay caloosheeduna nus kiilo basta ka badan ma baqaado idinka idin fil lahayd xaaraantu oo idinka muuqan lahayd oo muuqaalkiina wax tar lahayd oo magaciina wax tar lahayd nuur ba iga muuqda taasuna wax xalaashan doona naar ba idinka muuqata taasuna waa weey xaaraanta doonaysan marka aad ku daaleysaan taasi ana ducaa Soomaaliyeed arkay dad muslimiin ah waxa weey aragtidooda khayr iyo sunnihii nabiga iyo wuxuu ii tilmaamay anigu shar doona miyo nin muslim waana
محمد صلى الله عليه وسلم بان نبيغا سيدان قديديدي عقليغا iyo damiirkayga waxa ay siiyeen oo xaq aan u iibsada qabriga uu helay misaad igu noqonaysan kolkay tiidu timaado miyaa la laakin xisaabaya ama marka meel xun bay idinkaga dhacday taala laabta si kale ta wax doona gabal baa u dhacay wixii dulmiga waday dadka Soomaaliyeedna way daaleen dadka Soomaaliyeed way daaleen isku dir iyo qabiil iyo xaalad liidata iyo nacayb iyo kaasa xiga iyo dhalinyaradu way ka daashay waxa halka la dulminayo oo la ciilayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed weeyaan xasnimo iyo bahdil loo geysanayo kibir lagu ishaaranayo waqtigaasna wuu dhamaaday qaadan mayno dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhalatay xaalad dawladeed aan dimuqraadiyad ahayn iyo dareen wanaagsan in la dulmiyo qaadan mayno dhalinyaradu sidoo kale u niyad jabeen sidoo kale istayactir u haysan sidoo kale dunida uga hareen mana dhacayso dulmigaas oo kale inaan anigu dareenkayga qariyo intii garaad lahayna ay qariso ama ay danka doonto shamaarkana halka uma socdo riyad ku jirtaan iyo waxaan run noqonay marka waxa weeye ninka kan xabsigu galaya wuxuu mudan yahay buu helaya intii Soomaali uu ka ohiyay iyo kibirka wuxuu ku dilay baa looga daba tagaya ma fahanteen عندنا تنجوك تماشى تان لا يراهدو هولن وابا بري لا دبا كنت تنجو حديث كوين انه لحدك يقال بل يدلان iyo dumarna dareenkooda ma ham iyo ham markaad aragto waxaad ugu dhaaranaysaa jahannaba in haatan laga soo saaro aan calaasay waxay amal ka dhigatay ayda caarka dhalinyarada dulmigooda daldumid darajadiisu ma aha qowl wanaagsan iyo nabigeenu wuxuu tilmaamay kaliya wuxuu intifaac ka doonaa oo darajo u arkaa nuxus aadana ana fulay بلا حكمة بلا حكاية عقلنا الله ذلك وجوجا ودل وسرنا شرعي وكجرو سكستو وحوي حالها دلمي وجيستنا هدو مير قبا مع عقل وليه مد حشود وهان لها يا ده شرعي يحركيس اوكسون هذا هسا هتي دلني ما وجيسيه درين وصل لهين واسه تي وكو داوبي لها لوgu بسلين لهاويه ودا kale nina kan ay Ahmed yiraahdo bla arham waxaan daawanayay video uu leeyahay aniga dadka waa dilama windana waa dhimanaysa ma مكون حي ولا لك أبوي أركي يا ما معناها قفك حتى هدي وعوي دليرية والسنة المراهقية أو مقارنة ساي فعل خلطان سميه وين مذيه وشيء بون مذيه وين مذيه دخل علم إن الله سميه إن وحيابها أو تبني أما وحيابها كان خلطات كانوا سمينه يو قاب درين للو جوانية أما هدي وحتر إن نقطة واحدة ترى وحكا مشغول الله سميه هدي سبورت نقطة هدي أي وحكة لا توقعنا شيء نقطة ساعة اللي يراه أو مسكين أو باقي موضع أو دل كيسي بالبرسية هاي أو دبعة تجيستي دبعة نقول جوابية أو شنبان كل ماني عشان كلا تنقول دريه بحرب عتمة ساعة ما أنتوا عبسانية ما أنت أيوة عبسانية كين أنا ما هميتك الصومالية يوجا أود وين صومالي بدلوا كأود من باجرته ورات كوكا بوذا نواد مقلد دورتان يوحد يجيه له فرحان مركب أود الصومالية هذا كين يجوجا الدبعة هذا واحد بدن أركاي واحد بدن لدلميناي عيشوضي على اليوغا دريامي يهويين يردلين يوهي الانتباه تعدني إلهي وأقبلي نور باسراد مي وحي الدلمي يدنوب جيسان جرنا ما انت ودا ماتا حالك انو ارغنا واقح قحوتي مقرانيساي بهدلات دشه نول لقاتو ورق سومالييد waxa weeye duleysano dumar isu bedelay heerka maxay gaarsiiyay dulmigeenu qarsanayna gaarsiis cadaalad darrada ay gaarsiis marka waxa leeyahay dadka Soomaaliyeed dulmigeenu inaan ka dhidhino inaga dan noota inaga ku dawoobayna qoomiyadihii hore kolkii cid dulmi geysato ama ay halaagmaan ama ay xumaadaan anbiya loo soo diri jiray rasuul laakiin ummadda nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam culimadoodii intooda aqliga leh ayaa waajib saaran iyo shaqadooda ay tahay inay gutaan oo khayrka ay dadkooda faraan dulmigana ay ka reebaan inagu waxaan sugaynaa anbiyada dib inoo ka timaado rasuulna inoo timaado waa ma inaga weeye dadkii ka dhidhii lahaa godobta iyo dulmiyada dhacaya u dandooni lahaa dhasheen iyo dhalaankeena iyo dumarkeena iyo dhalinyaradeen ma hadii kale aad isleedahay taa maxaa iga galay waxa afaraha ay galiyay de aakhirana waa la soo baxaysa hadalkii nabiga alayhi salaatu wasalaam baa aha ka dhidhi xumaata gacan haddaan wax kaga qayn karno carab kaga qabo waa ilaahay mahadiye dadka Soomaaliyeed in lagu yaqaan dun wanaagsan iyo dulmiga ay diidaan dhalintooda burburka iyo qaxa ku dhalatayna waxa weeye badidood way ka karti iyo karaamo badan yihiin waxa dibad joog ah ee dalal kale taa dhalintooda sababtoo ah dhibaatooyinka dhacay xumaantada dulmiga loo geysanayo waxay ka qaadayaan horumar aqli isjacayl iyo dun wanaag
xabad way jiri kartaa dan damiir lahayn sababtoo ah waxa la yiri nin xalaal ku dhashaa xildhiba dadkeenu burbur buu ku dhacay iyo dhibaato dad walwaalan baan ku jiro oo aan caadi u haysan oo ma garanaysaa cidi aanan daweyn oo ma garanaysaa xaalad burbur iyo xaalad kale toba ay noloshooda saameyn ku yeelatay waxayna ku jiraa kuwa aan xalaal ba ahayn idigu waligeed ma aragteen 20 jir ma garanaysaa farx ilaan inta wadamankii waxaan maqli jirnay farx darbi laga helay iyo farx dhul lagu tuuray iyo ilmo ma garanaysaa suul lagu riday iyo ilmo isbitaalka laga caray bal idigu ma aragteen 20 jir leeyahay waa kuwii laal mid kamid ah ma aragaysan waa kuwa kaneen hadda arkayno oo dadka dhibaya baan isla yidhi nin xalaal ku dhashaa xilliba haddaysan kuwa ahayn nadee xaaraan bay barteen ama lagu koriyay ama ku karaamo doonaan marka waxa weeye ninka Shamaarka la yiraahdo uu tagaya Kenya uu tagaya Nairobi asaa haatee waa inta xaqqa uu soo baxayo oo maalmo kooban ay noo ka hartay oo dulmiilayaashaas waxa weeye dekanaha ay geysteen dib dambe qof Soomaaliya uu sadib go'tay meeshan sharci baa ka jira loo baa ka jira dadka kan uu dilay oo madaxa ka tooganayo waa kuwa la soo saxiixay ma kuwa iska dilaad moodeen waa kuwa la soo ansixiyay in dambi ay galaan uu markaa ma garanaysa ay soo qortay hasa aata inanka kan marka uu dilayay قلب يقدر يكون دري وحنا كل إشارتنا واخر سقي يدق درجة حالة سنة وحالة وكدي كام يا مانتا يضع حقنا إن شاء الله وذاك دونتان ومغرب دونتان ودريم دونتان وذوقان دونتان لكن ما نديش يا شماركة ضمير كمال درين كمال ونمد اللي يرى ما شغلك لو عيلي استقل مقرنا يسير لي يري بريوتن سواء على ميرو كتجنا مقرنا يسير ده نلهوي ينديدو marka waxa weey dadka Soomaaliyeed aan u sheegaya iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waqtigii baa la joogaa isbedelka waqtigii samaha la joogaa waqtigii danaynta la joogaa waqtigii darajada la joogaa waqtigii daryeelka la joogaa kuwa dulmi wadayaashana waxa leeyahay xilligaad hoog lahaydeen baa la joogaa hoog baa idin sugnaaday jidkii fircoon bad galaysa badda sidii fircoon loogu dhuftay anaga ficilka iyaga iyo dareenka iyaga iyo sharciga iyaga iyo awoodda iyo dabaysha iyo duufaanta bulshada Soomaaliyeed baa waxa weey idin gilgilayso dib idin dhigaysa ama wadada toosan idinku xageysa ama halka aad midantihiin idin gelinaysa dhalinyarada Soomaaliyeed social media isticmaasho waxa leeyahay war maysaan war idin ka haro oo wanaag sida aad u wadaan u sii wada oo ku dhiirada sida aad hadda ugu dhiirateen inaad dulmiga sheegtaan waa taas sida aanu dalkeena horumar iyo wanaag u gaarsiin karno waxa jira safaarado dadka dhiba safiiro dadka dhiba oo ma garanaysa hay'adaha Soomaaliyeed ka kala reebin aan sidii ay mudnaayeen wax u qaban inaga ka aan keenin عربكينا قاري عدكينا بدلاي لكن وإنه اسكدومني وقوة ديدنا أو دوقينه هذا مد أنه كدورينه دنينت وحوي برشة الصومالية وحاوطة لا واحد كرجيني يا برشة الصومالية إنه قلوب تهذا سكفره وكده قوة دول مجديدة كسر جدا وحيابا نحوسته وإنه برضه بدي يعني أنت أصلا وحوي دقنا ذا يدلك هذا يبرشة هذا بدي بقولك إلى هاي أبي فرع وحنا نقولها هنا في رضا قرحانة ده درين كان هقولي وهايدين دول مجديدة درجة ولا أحسن نبضها برنامج كما كلا انت دب وكل مننا واحد لي ورسني وخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى